internetka maanta wuxuu bedelay sidaan shaqooyinkan u qabsan. Shaqo kasta oo xilligii hore laga qaban jiray gacanta hadda waxaa loo qabtaa qaab digital ah calaashan casri ah. Waxaa la joogaa waayo la soo saaray baabuur iyagu si iskooda isku wada calaashan aan wax darawal lahayn. Asxaab wada shaqaysa oo iyagu kala meel jooga shaqo wada qaban kara, shirna wada geli kara. Dhaqaatiir laga yaabo inay wadan kala joogaan kuwaas oo ka qayb qaato qaliimo ama daweyn qof bukaan ah oo isna wadan kala jooga. Intaas in ka badan oo isbedel oo ku imaanaya hawl maalmeedkeena caadiga ah iyo sida aan shaqooyinkeena u qabsano. Waxaa qasab noqonaysa inaan barano xirfado ugu yaraan naga caawin kara inaan la jaan qaadno halkay wax u socdaan. Haddii ay dhici weyso inaad xirfadahaas qayb ka mid ah juhdi gelin weyso inaad barato, waxaa yaraan doonta wax soo saarkaaga shaqo maadaama shaqooyinka badi ay u guureen isticmaalka internetka iyo kombiyuutarka. Barashada xirfadahan fudud ee casriga ah ee loo yaqaan basic digital skills waxay ka caawinayaan la jaanqaadka iyo fahamka xirfadaha casriga ah ee horumarsan ee loo yaqaan advanced digital skills, kuwaas oo laga yaabo inay kaaga soo dhaxbaxdo fursad shaqo aad kula shaqaysato dunida inteeda kale. Xirfadda koowaad, basic computer skills. Xilligan aynu joogno ee loo yaqaan waayaha casriga ah ama digital age, inaad fahansan tahay waxyaabaha aas-aaska oo ah teknolojiyadda waa muhiim aan la qiyaasi karin. Isticmaalka programyada shirkadda Microsoft sida Excel ama Google Sheet oo loogu talagalay inuu xaliyo waxyaabaha xisaabaadka la xiriira iyo word processing oo asnaha program kale oo lagu qorto dukumentiyada kala duwan sida araajida shaqada, qorista dhiganayaasha khuseeya arrimaha bulshada, kuwa caafimaadka, kuwa waxbarashada intaba waxay asal iyo furo u yihiin fahamka iyo la jaanqaadka teknolojiyadda. Sidoo kale programyada horumarsan oo ay ka mid yihiin Search Engine Optimization ama SEO oo ah sida xogta shirkad ama ganacsi ay leedahay looga dhigo waxa ugu horeeya ee qofka internetka baaritaanka ka sameynaya u arko, iyana waa muhiim maadaama la joogo xilli shirkad ama ganacsi walba oo maanta jira in uu rabo in badeecadiisa lagu baahiyo internetka. Xirfadda labaad waa graphic design. Xirfadan naqshadeynta ah waxay ka mid tahay xirfadaha ugu muhiimsan xilligan looguna baahi badan yahay suuqyada digitalka ah sida sameynta xayeysiimaha online-ka ah, daabacaadda badeecooyinka shirkadaha, qurxinta buugaagta, naqshad iyo sumad u sameynta ganacsiyada ee loo yaqaan branding and business identity. Baahida loo qabo xirfadan ayaa sanadkan 2022 ka noqotay xirfadaha loogu baahi badan yahay suuqyada internetka iyadoo fursadaha shaqo ee banaanay gaareen 65%. Barashada xirfadan waxay shaqo madax banaan ama freelancing adba sida aad u taqaano ka siin kartaa website-yada isku xira shaqo raadiyaha iyo shaqo qabtaha oo ay ugu caansan yihiin website-yada Upwork iyo Freelancers. Xirfadda saddexaad waa social media marketing. 15 sano ka hor xayeysiimaha iyo macaamiil u raadinta badeecadaha ganacsiyada wuxuu ku ekaa in laga baahiyo idaacadaha, telefishinada iyo in lagu daabaco wargeysyada sida asbuuclaha u soo bixi jiray ee daabaca wararka. Soo ifbaxa shirkadaha social media sida Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp iyo TikTok waxay u fududeysay ganacsiyada inay ku xirmaan macaamiishooda iyo dadka saameynta ku leh social media ee loo yaqaan influencers. Sidaas daraadeed inaad noqoto qof social media laga yaqaano lehna xirfadda social media marketing waxay kuu suurtagelinaysaa inaad hesho shirkado aad u maamusho akoonadooda social media si badeecooyinkooda aad ugu dhex iibiso internetka gudihiisa. Shirkadaha waaweyn ee dunida ayaa ogaaday muhiimadda ay leedahay xirfadahan casriga ah ee loo yaqaan digital skills door muhiim ahna ay ka ciyaaraan horumarka ganacsigooda. Xirfadahan qaarkood ayaa xujo u noqday shaqooyinka qaar oo ay qasab tahay inuu qofka yaqaano si uu ugu guuleysto shaqada, halka shirkadaha qaarna ay shaqaalahooda u qabtaan tababaro lagu barayo xirfadan qaarkood si ay uga qayb qaataan kor u kaca ganacsigooda ee ku xiran xirfadahan. Gabagabadiina haddii aad dhameysatay muuqaalkan waan kaaga mahadcelinayaa daawashadiisa. Waxaan jeclaan lahaa inaad commentiga hoose nagula wadaagto waxa aad ka fahantay xirfadahan aan kor ku soo xusnay iyo xirfadda aad isdhihi karto waad baran kartaa mustaqbalka dhow insha Allah.